website-ka nalka.net ayaa nasiib u yeeshay in uu wareysto Sheekh Cabdirashiid Sheekh Ali Suufi. Sheekh Cabdirashiid Sheekh Ali Suufi waan ku mahadcelinaynaa marka hore inaad noo ogolaato inaan interview ka qaadno. idinka mahadsan insha Allah khayran Allah idin waafajiyo barakallahu fiik. Jazaakallah. waxaan jeclaan lahayn inaan ku weydiino meeqa tajwiid ayaa jirta Quraanka. alxamdulillah allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sallim. horta run ahaantii tajwiidku waa mid qura laakiin waxaa jira wax la yiraahdo qiraa'aat si kala duwan oo Quraanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu soo dejiyay lagu aqriyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala 7 xaraf ama 7 qiraa'o 7 xaraf aan iraaho qiraa'aadka saxiixa waa 10 laakiin 7daas waj ama 7daas luqo ay u kala qaybsan yihiin marka saas awgeed in qiraa'aadka waa 10 qira weeye laakiin tajwiidku kulligood uu wada saameynaya oo kulli waa mujawid insha Allah barakallahu sidee dhalinyarada barata Quraanka u xifdi karaan Quraanka. alxamdulillah marka ugu horeysa waa in raqba ay jirto. Quraanku waa aziis waa kitaabka Ilaahay waa Ilaahayna wuxuu siiyaa qofkii jeclaada. horta waa inaan ku dadaalnaa ciyaalkeena iyo ahlkeena inaan jeclaysiino Quraanka oo ay jeclaadaan ka bacdina aan ku dadaalno inaan waqti siino oo ay ma garanaysaa ay Quraanka wuxuu u baahan yahay waqti la siiyo. ilmihii oo iskuul ku soo dadaalay ku soo rafaaday maanta dii la ilaa hal saac ama in ka yar waxa adkaanaysaa marka inaan waqti u ogolaano kadib marka waqtiga la helo khaasatan waqtiyaha samarka oo kale fasaxyada oo kale inaan ka faa'iideysano waqti full time aan siino Quraanka ayaa loo baahan yahay. haddii taa la helo insha Allah way iska sahlanaanaya waa uun meesha uu rabo inuu xifdiyo macallin wanaagsan horta marka hore inuu u aqriyo ka bacdina uu ku celceliyo ilaa carabkiisu uu ku leeyamo taas dariiqada ayaa ugu wanaagsan. dhalinyarada barata si aysan u iloobin maxaa mudan inay sameeyaan. taa waxa u dardaarmay nabigeena kaleey salaatu wasalaam nin kasto Ilaahay Quraanka siiya oo nabigu waa u dardaarmay kaleey salaatu wasalaam in Quraanka lagu celceliyo. nabigu wuxuu yiri Quraanka hadiya goor ka war haya maxaa yeelay wuxuu ka daran yahay geela dabran sida uu fakada si ka badan buu fakanaya in Quraanka hadaan la aqrin oo wardi laga dhiganin oo hadiya goor marka way iska fakanaya. marka dadka Quraanka xifdiyay ama bartay waxaan ku waanin lahaa ma dhalinyarada xufaada inay Quraanka wardi ka yeeshaan oo waqti hadiya goor ay samaystaan ay maalintii ama habeenkii waqtiga u sahlan inay marka 2 juz noqoto 3 juz noqoto haduu Quraanku xifdisan yahay haduu in yar ka xifdisan inta waa ka yareyn karaa laakiin hadiya goor akhriska badan ayaa Quraanku ku sugnaada. ma jirtaa waana guud oo si lahayd dhalinyarada qurbaha jooga iyo waalidkooda. waxaan ku waanin lahaa inay dadaalaan oo diinta Ilaahay gacanta ku qabsadaan maxaa yeelay Ilaahay subhanahu wa ta'ala yani isaga adduunkan iyo aakhiradan iska leh qofka liibaantiisa inuu adduunka ku liibaano wuxuu ku helayaa diintiisa. umurta kale adduunyada dhan ha qabsado walaakin gacantiisa midig diinta ku qabsado. diintana waxa ugu muhiimsan waa Quraanka Ilaahay. marka Quraanka Ilaahay inaan baranno oo hadiya goor aan akhrisano oo guriyaheena ku noolayno Quraanka. maanta guriyaheena waa ka qatan yihiin Quraanka yani in xalaqa aan sameeyno guriga hadiya goor reerkii oo dhan ay fariistaan oo aan akhrisano oo malaa'iktu noo soo deegto oo raxmad guriga ay noo soo gasho. marka waxaan ku waanin lahaa arintaas dhalinyaradana gaar ahaan waxaan oran lahaa inda sarcaadkan magaalooyinkan Yurub iyo waxaan yana idin kadinin waxaan oo dhan waa wax zaa'ila waa wax tagaya waxa sugnaanaya oo baaqi noqonaya oo qabriga iyo aakhire iyo jannadaba idinku waray waxa weeye Quraanka Ilaahay barta taasna idinku waanin. su'aasha u dambaysa oo nalka.net ku weydiin lahayd waxay tahay dhalinyaro jecel inay tajwiidka bartaan ayaa waxay noo sheegeen inay jecel yihiin tajwiidkaaga gaar ahaan markaad akhrinayso ar-rahmaan wax yar ar-rahmaan ma akhrin kartaa. bismillah waayahay a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء
ربكما تكذبان. صدق الله العظيم.